dowlad goboleedka Galmudug ayaa war ka soo saartay dagaalkii ka dhacay deegaanka Qaayib ee gobolka Galguduud. wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug ayaa faahfaahin ka bixisay weerarkii qaraxida ku bilowday ee saaka aroortii hore kooxda nabadiidka Al-Shabaab ay ku soo qaadeen deegaanka Qaayib oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Baxda ee gobolka Galguduud. halkaas oo dagaal xoogan uu ku dhaxmaray ciidanka militariga Soomaaliya iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya iyo sidoo kale kooxda nabadiidka ee weerarka ku soo qaaday. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga Galmudug ayaa lagu yiri saakay oo taariikhdu ay ahayd 7 bisha November sanadka 2022 waxay khawaarijtu aroornimada hore ee saakay salaada subax ay qaraxay ismiidaamin ah ku soo qaadeen deegaanka Qaayib ee gobolka Galguduud iyagoo adeegsanaya 2 gaari oo qarax laga soo buuxiyay sidoo kale dagaal foolka foola. wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegtay in ciidanka dowladda qaybahooda kala duwan ay ku guuleysteen inay fashilaan mid ka mid ah qaraxyadaasi halka midka kalena uu ku qarxay banaanka hore ee saldhigga. waxay ciidanka geesiyaashu ay ku guuleysteen inay dib isaga caabiyaan weerarkii fulaynimada ahaa ee khawaarijta caadiysatay daadinta dhiigga ummadda Soomaaliyeed ay ku soo qaadeen deegaanka Qaayib ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka. ugu dambeyntii wasaaradda amniga Galmudug ayaa sheegtay in wixii faahfaahin dheeraad ah ay ka soo baxa halkaasi ay soo shaacin doonto iyadoo sidoo kale ugu baaqda shacabka Soomaaliyeed in kooxda nabadiidka Al-Shabaab ay marayaan halkii ugu dambeysay dhamaadkooda ahayd oo aan laga daalin dhamaystirkooda.